kulanti wanaagsan daawadayaal kula soo dhawaada barnaamij kale oo aad u xiiso badan iyo waliba fanaanada aad u xiiso badan in badanna aadna weydiinayseen in aanu mar dhowr su'aalood isku helno oo su'aalo idinku aad qabtaan iyo kuwa anagu la baadi goobaynaba aanu weydiino waxaad is weydiinaysaan tolow fanaanadaas waayo dabadeedna sawirro badan baa maskaxdiina idin soo baxaya waxba yaana war idinku daalin waa fanaanada Soomaaliyeed ee reer Sweden ee deeqa afro kaliya lama dhaho laakiin deeqa aadan muuse la yiraahdaa magaceeda laakiin xaqiiqatan magacaas qaybta hore ayadu ma lahan oo magac kale ayay leedahay deeqa afro waanu naqaanay oo kaliya laakiin deeqa waxyaalo badan oo caawa inaan hore uga ogeyn ayaad ka ogaan doontaan deeqa ayaa waayahan jacayl ka duwan kuwa aanu naqaanay la daala dhacaysay deeqa waa hooyo Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliyeed haddana waa fanaanad waxyaalo fara badan ayay deeqa ka shaqeysaa oo horumarka bulshada ah oo aan jecelahay inaan caawa wax ka weydiino iyo nafteedaba deeqa afro aad baan ku soo dhaweynayaa yes walaalkay Cabdixafiid Maxamuud Jaamac waxaan ku iri dhaga ma guuraan dhaga geel ma guuraan nina dhaladkii kama tago soo dhawow adeer waan ka qaaday intaan ugu gudagalay waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta iyo ixtiraamka iyo karaamada leh ee waqtiga noo siisay aadna iga aqbashay in aanu mar fooda isdarno maadaama waayahan aanu saraadinay alla walaalkay adiga mudan waadna istaaheshaa mar walba wax waqtiga loo soo hormariyo waana farxad iyo inaan kula kulmo aad iyo aad baan adigana ku salaamaya waana kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo barnaamijka iigu casuuntay thank you very much haddii aan marka hore ku bilowno gabar Soomaaliyeed baa tahay dabcan gobolka Doolla ayaad ku soo barbaartay Sweden baad iminka joogtaa fanaanad baa tahay fanka iyo suugaanta cabaar baad ku jirtay laakiin dadweynaha Soomaaliyeed marka hore aanu arrintan magacaaga koobaad inuusan deeqaba ahayn ee magac kale oo dhaba oo lagu yiraahdo uu jiro bal marka hore nooga dhacaysay arrintaas ku dhacday والله horta Cabdixafiidow anigu waxaan soo maray marxalado badan oo magacyo ah anigu horta reerkeena yaraan baanu ahay ma sha Allah way igu wada weeyeen dhinaca hooyaday yaraan baanu ahay aabahay ilmo yar buu leeyahay ma sha Allah Allah noo barakeeyo laakiin magaca bedelku horta waxa keenay jacayl iyo qabay maadaama aan yaraan ahaa marxalado badan buu maray runtii magacii ugu horeysay oo la ii baxshay runtii anaaba hadda ka xishoonayo wuxuu ahaa magac qabiil marka magac qabiil buu ahaa horta laakiin ma sha Allah magacyo kale ka tira badan oo ka qurux badan baan haddana aan helay waa gartay laakiin qabyaalada uma bixin magac lagu la jeclaaday bay dabcan horta walaa qabyaalada iguma bixinin wuxuu ahaa magac la jeclaaday waa run magacaygaasna waxa la oran jiray intaan deeqa la oran ka hor waxa la oran jiray harti deeqa marka horta haddaan sababtaas magacaas horta hooyaday baa ii bixisay ma sha Allah harti deeq buu ahaa magacayga marka horta magacii ugu horeysay oo la iigu yeeray kaasoo ahaa waa gartay tana waxa dhacday in aabahay ii baxshay magac la yiraahdo cusub iyadoo cusub la yiraahdo ayaa haddana waxa dhacday horta intan magacan harti deeq la iga bedelin ayaa waxa dhacday maalmaha kamid ah nin oo abtigay ah oo maartay sheekh wadaada ayaa wuxuu yiri wuxuu maqlay magac la igu yeerayo harti deeq iyo waxaas markaas intuu yaa wuxuu gabadha magaceed saali harti deeq zaya harti deeq acuudu billahi min shaytaan janna gabadha magaca ka bedel marka hooyo ku yiri gabadha magaca ka bedelo waxa jirta baabtigeed baatay ka bedel betel moogta ninka abtiga ilaahay khayr siiyo wuu baxay gurigiistii buu tagay habeen dhan buu wuxuu ku soo jeeday magacyada quraanku aqriyay wuxuu yiri suurad walba intaan aqriyo baa waxaan ilaahay ilaahu burjigeeda magaceeda igu tus adigu calaati hal dhowr magac oo meel ku maxaan ku daadshay qorituur xafsa soo baxday magacayga markuu wuxuu ahaa xafsa ay marka cusub baa lagu dhahaa deeqa lagu dhahaa xafsa lagu dhahaa
waa magacyo badan tahay wanqalkaagiina sidaad sheegtayba dhaqanku wuxuu yahay gabdhahana hal neef baa loogu wanqalaa inamadana labo ade labaa lagu wanqalay ninkii kusoo doonayna waxa uu yiri aan wax afsa dooni maaye deeqa okay magacyadii baan ku jirnaa magacan afro xaguu ka soo raacayaasha ku bixiyay muxuuna ujeedadu ku yimid waxa horta inaad magaca afro horta wuxuu ahaa anigu horta waxaan lahaan jiray timo yaroo maartay bulbula baan mar walba lahaa marka bulbulo ahaa magacayga hore markii ugu horeysay bulbulo marka bulbuladii bay dadku inta yara fahmi waayeen bay dhahan waaba afro markaan qurbaha ibin baa afro igu baxay laakiin magacaas timaha mar walba waan wato de wuxuu ahaa bulbulo ahaa marka kaasna waa saas haddaan si fudud u dulmarno waxa la yiraahdo fanka iyo suugaanta iyo goortaad kusoo biirtay bar haddaad xusuusta dib cajalada u yara celisid maxaad ka xasuusataa cabdixafiid horta anigu fanka waan ku dhashay baan dhihi karaa sababta aan u leeyahay waa ku dhashana waxay tahay aniga waxay dhashay gabar abwaanada oo maaragtay runtii meelo badanna laga yaqaano oo maaragtay dhinaca Puntland oo kale mas'uuliyad maaragtay ka soo ahayd gabayda buraanburta qof runtii bulshada ay ku noolayd maaragtay caanka ah oo ka ah maartay darajo looga hayo ayaa dhashay marka durbaanka anoo yar baan tumi jiray marka fanka anigu waa ku dhashay taas waa gartay marka fankii hadii ay gurigii kaga soo barbaartay oo hooyo saas ay tahay halkaan waa ka salaamayna khayr alaasiyo dabcan inaad soo bandhigtidood heesi kartidood ummadii soo hor istaagtid baa ku xigtay heestii kuugu horreysay qaaday meeshaad ku qaaday yaa miraha lahaa bal dib u yara xusuusa ayadana alla walaal horta cabdixafiid oo markii intaanan heesin ka hor anigu horta waxaan qaadi jiray waxyaalaha dhaqanka jaandheertoo kale aroosyadan ka qaadi jiray ciyaaraha afka laga qaado durbaankooda wata ayaan horta markii ugu horreysay runtii xataa anoo afra ciyaaraha hidiya dhaqanka ayaan horta qaadi jiray markii ugu horreysay oo maartay waxaan tumi jiray jaandheertoo kale marka ciyaarihii iyo waxyaalaha dhaqankaana xoog baan u jeclahay anigu adduunka waxaan u jeclahay wax dhaqan la yiraahdo marka dhaqankii aan sameyn jiray oo maaragtay aan xooga saari jiray ayaa waxa ka soo dhex baxday heesii baa ka soo dhex baxay marka inaan heeso de saasa keentay oo ma sii gudbay laakiin waa gartay heeso badan baad kale qaaday isaan ogahay Donald Trump ha ahaato wixii hore la iska ilo wixii hore iyo heeso kaloo lamid ah ayaad qaaday heestii 2018 aad qaaday maalintii calanka Soomaaliya loo qaaday kooda luuliyo ma qan waxaa jirtay Soomaali baan hees la yiraahdo dad fara badan ayaad u riyaaqeen aad qaaday iyo heeso kale igu filan jacaylkaaga oo kala kamid ah heesahaas oo dhan markaad eegtid deeqo heestay baad isleedahay iyo kuwa kale aan soo koobi karinin bay deeqa ugu jeceshahay haddaan ku dhaho 2 ama 3 ka dooro sababtuna waa maxay horta wallahi heesaha aan qaado waxa jirta 2 hees kaliya ay qusaysa wax kale ay quseeya ma jirto waxa kale waxaan u qaaday jacayl aan u qabo iyo munaasabado iyo de rabitaan baan u qaaday heesaha kale laakiin heesaha aniga aan maartay quseeya labada heesood adiga gaar ku quseeyo oo dabcan aad ka xulatay kuwa kale oo dhan adiga quseeya alla saaxiibo waxaan kaaga sheegi karaa jacayl aniga isoo maray oo maaragtay cajiib ahaa oo aan u baxshay jacaylka luuqa jacaylkaas looga yara dhac iyo jacayl aan u baxshay baa jirtay jacaylkii laabka galay marka horta jacaylka intaan u gudbin heesaha aniga aan qaado 2 heeso aniga qusaysa midna waxa la yiraahdaa ibalami midna waxa la yiraahdaa igu filan marka hadda soo koobtid waa wanaagsanaan lahayd igu kooskariyaan dhihi karaa inkastoo maartay jacayl dheer ahaayo cabar ay nagu qaadanayso inaan ka sheekeeyo horta bal intaan jacaylkayga dhabta ah u gudagelin waxaan wax kasta horta cabdixafiid waxay leeyihiin maaragtay gundhig iyo waxay leeyihiin
aas wax kasta waxay leeyihiin aas marka waxaan horta waxaan intaana jacaylkaba waxaa keenay haddaan maaragtay sii faahfaahiyo wax kasta aas baleeyin horta anigu ahaantaydu waxaa jirta noloshan hadda caadiga ah oo maaragtay inagu hadda aynu ku noolnahay oo dee adiguna aad caadi u aragtid dadkuna caadi u arkaan anigu waxaan u baxshay noloshii nolosha dee waxaan u baxshay ah iscaajka ama nolosha waxaan u baxshay sug waa gartay nolosha buuqa nolosha aan deganayn nolosha bilaa xasiloonida ah nolosha bilaa xasiloonida aan u baxshay noloshan marka bilaa xasiloonida aan ka hadlayaa waxay tahay waataynu hadda ku noolnahay sababta aan saas u leeyahay waxay tahay telefoon baa kuu soo dhacaya maxaan ku irta TV baa waxaa kasoo gelaya war kasoo gelaya maxaan ku idhahay toy dee gaari baad wadataa diyaarad baa wiifle dhar baad qabtaayo marka waxaa leedahay noloshaan baad kaleedi weeyaa leedahay qof maaragtay xirxiran baad tahay oo dee dhar qaba warqad baa kuu soo dhacaysa noloshaan oo dhan baa marka waxaan u aqaanaa nolosha buuqa nolosha aan deganayn marka noloshaan horta waaba kadeedba bataatanba laakiin waxaan isiri horta bal deeqay haddaad maaragtay tan aad dee qofkii wixii intuu wixii maaragtay saluugo inuu haddana xal keeno waa muhiim marka waxaan isiri bal xal keen maadaama aad noloshan aad u bixisayba nolosha xasilooni darrada bal nolol maaragtay tan dhaanta keen warta marka waxaan ku fakeray inaan maaragtay aniga ahaantaydu intaan fakero oo aan xilli walba macnaha igu qaadato ama inkastaba ha ila gaartee aan horta aan u guuro ama aan ka mid noqdo dadkan loo yaqaano dadka duurjoogta ah ama maxaa la yidhaha Soomaalidu waxay tiraahdaa cawaanta marka deeqay yara qiix noloshaan kadeedka inaad ka baxdid oo dadka cawaanta aadid maxaad ula jeedaa waxaan uga jeedaa walaalow waxa weeye horta aniga kuu sheego ku iri dee nolosha hadda halkan waa nolol bilaa xasilooniya marka waxaan ka doorbiday nolol kale oo ka yara degan oo maaragtay bilaa buuqa oo intan hadda calaamadahan anigu hadda aan soo sheegay oo dhan ay ka madax bannaan yihiin marka waxaan go'aansaday inaan ka mid noqdo dadka loo yaqaano dadka cawaanta ah ama baadiyaha ku dhaqan oo bilaa macnaha waxyaalahan hadda aan sheego oo dhanba dee aan arki karin marka sheekadii anigu waan sii watay go-aankaygii waan kusii adkaystay waxaa dhacday marka walaalo cabdixafiidow inaan qiimeeyo horta xageen ka heli karaa marka xagee macnaha waxaan ka suurtageli karaa waxaan hadda maskaxda iiga jirta oo iga guuxaysa xagee ka suurtageli karaa adigu sheekadii sii waday waxaan marka hadda ka hor aan dhowr jeer tegay dalka Indonesia ayaa waxaan tegay dhowr jeer marka dalkii markaan dhowr jeer tegay ayaan ka helay waxaan ka helay macnaha dadkooda miyiga oo kale waa dad free ah oo maaragtay dhulkuna waa dhul qurux badan marka meeshaas horta waxaan isiri aleelehe noloshan aad sheegaysid oo degan oo bilaa buuqa ah oo maaragtay qofku duurkiisaas isaga jiro oo laba maaragtay caleen midna hoos lagu xiranayo midna kor lagu xiranayo oo aan maaragtay lahayn koronto iyo balaaye iyo cunno maaragtay wax lagu soo daray iyo waxaas aysan ka jirin oo dee natuur ah marka aniga horta taasaan maskaxdeeda geliyey deetana waxaa dhacday inaan maaragtay dadaal badan u galo oo maadaama dhulkaas aan jeclahay Indonesia oo hadda ka horna aan tegay ayaa waxaan sameeyey inaan maaragtay sii wado oo dhulkii tago oo bal at least wixii iiga suurtageli karaa laakiin waxaan maskaxda haddana kusoo dhacday dee keligaa meeshaas ma aadi kartid way kugu dhib badan tahay dee qof keligiis meeshii aaday ma taqaanid maxaad samaysaa marka waxaan markaa haddana doorbiday inaan lamaano yeesho
lamaanihii marka halkan haddii aan iraahdo qof halkan jooga ama meel kale joogaan inta kaxeeyo ayaan maaragtay u geynayaa maaragtay dadkaas cawaantaasaan ka mid noqonaynaa way nagu adkaanaysaa marka maxaan sameeyey waxaan doorbiday in aan meeshii aan ka helo lamaane in aan anigu ka helo taas ba haddana sii adkaatay maxay ku adkaatay waxa weeyaan dadkii aad ba waxa u adag in lala kulmo dadkan maaragtay duurjoogta ah si loola xiriiro in lala kulmo waxaasoo dhan aad ba u adag tahay adigu juhdi badan iyo arrimo badan baa meeshii maaragtay aan runtii xooga saaray ilaahay amarkiis wax walba way yara fududaadeen inkastoo aysan fududayn laakiin haddana somehow maaragtay waxbaa suurta galay waxa dhacday marka walaalo in aan dad meeshii maaragtay dadkaas inaan la xiriira u baahanahay muddo badan bay qaadatay runtii qarash badan wax badan baa baxay anyway waxa dhacday anigu inaan maaragtay CV-gayga aan qoro oo anigaan deeqa ahaan maaragtay intaan CV-gayga qoro aan gudbiyo si maaragtay at least la igu soo jawaabo adigu muddo ka bacdi waxa dhacday inaan sawiro badan oo maaragtay aan helay adigu 20 iyo dhowr ilaa 30 qiyaastii dadkii duurka ku noolaa kamid ah marka waxa dhacday marka ilaahay amarkiisa sawirada anoo fiirsanaya isla dee haddaabad maaragtay noloshii dhinacaas aad ku abuuri lahayd waad gaartay xilligeedii ayaa waxa dhacday cabdixafiido wallahi waxba kaama qaranaye waxa dhacday waxaan arkay oo indhahayga ku dhacday nin maaragtay cajiiba oo Soomaalidu waxay u yaqaanaan dadka quruxda badan faras wallahi faras buu ahaa ilaah baan ugu dhaartay sawirradii wallahi ma wada daawan sawirada inaan sii wado oo daawado bay ahayd man daawan waxaan sameeyay waan joojiyay meeshii waan ku joojiyay isaan ku noqday haddana waan fiiriyay dadkii ii soo diraan la xiriira waxaan ku yidhi waxaan u baahanahay qofkaas weeye adigu process kala bilowday in la is arko in maaragtay la kulmo ninka cawaanka ah muddo kadib waxa dhacday cabdixafiido haddaan ku idhaahdo ka waran wallaahi markuu isalaamay ayaa waxaan dareemay inuu ninkayga yahay qofka ninkii cawaanka ahaa qofku bini aadanka horta qofba wuxuu leeyahay ilaahay baa dadka wuxuu kala siiyaa power oo qofba waxba aad ugu fiican yahay marka anigu waxaan aad ugu fiicanahay dadka waan dareemaa dadka waan fiiriyaa halka taagan ma fiirinayaa wax alaala wuxuu damacsan yahay wax alaala sidii wuxuu jiraan markiiba jawiga ama qofkaas wuxuu indhihiisa haddaan qofka fiiriyo indhihiisa iga badan macnaa inta badan dadka waxaanahay dadka hela qofku wuxuu yahay deeqoy sheekadan waxaa rabaa inaan dhowr su'aalood iyo kaa weydiiyo oo muhiim aan isleeyahay daawadayaashu inay fahmaan weeye waxaa tiri ninkaanu Soomaalidu dadka aad tilmaamayso kale oo aan dharka xiranin oo hawdka ku nool ama miyiga ku nool oo waliba dadkaas Indonesianka iyo Red Indianka iyo dadka noocaas Soomaalidu waxay taqaanaa Cali Baystein intaan wax kale u gudbinba daawaduhu wuxuu isweydiin karaa deeqa oo gabar Soomaaliyeed ah oo Soomaali ah oo hooyo aaba Soomaali ay yihiin waxa rag Soomaali ilaahay badiyay oo diyaar guur u ah oo qaarkood laga yaabo meel ay ku soo maraan inay la yihiin ay jirto qaarkood arjiye ku soo qorteen ninka hawdka ku jira oo maxaa la yiraahdaa reemii ma rabeen aan dhaho reemii dadku waxay maleynayaan miyigeeni iyo dhaqankeeni saad u sheegtay laakiin hadaan u dhigo ninka cawaanta ee qaawane wasladihiisii ku daday caleenta aan dharka xiranin maxay deeqo ku fashay haddii la yiraahdo maxaad oran lahayd horta waxyaalahan horta qofka waxbaa lagu meel ka abaaraa waxaan anigu horta ninkan
waaniga kule jawigii anigu aan jeclaabaan halkaa horta ka raadiyey oo aniga meesha aan ku noolaan lahaa iyo jawigii iyo dhulkiibaa horta ii geeyey markii ugu horeysay tan labaadna dee soomaalidu waa walaaladay waxa weyn waa dee waa soomaalida anaaba soomaali aba soomaalida raggeedana rag ka wanaagsan ma jirto walaalo laakiin muhiimaddu waxay tahay waxaan isiri yaa ayara kaftame qofka Soomaaliga ah wixii kuma adkaysto wixiisaya waxaan isir 5 sano markuu kula noolaado ama iska soo noqdaayo isirahada maarta soo daala marka dad xoogaa serious ma nihin saasa keentay xoogaa inaan baadiye lama geen karo qofkii maarta Soomaaliga haduusan awal joogi jirin nolosha lagama bedeli karo ana waxaan ku talagalay inaan nolosha si toos ah macnaha aan anigu nolosha iska bedelo qofkayga nolosha bedelo haddii aad u guurtid oo hadda halkaas u guurto Sweden ka tagtid oo meesha hawdka ay dadka cawaanta ay ku nool yihiin aad tagtid adigoo dharkaagii qabo iyo dhaqankaagii wataan meeshii ka degaysaa dadkiina dhaqan kale iyo waxay wataan si kale u labisan yihiin ama aan ilaahnay maba labisnaba waa sidii hooyadu u dhashay oo caleen bay saartaan cawradooda maxaad aad arrintaa ka yeelaysaa والله هرتي محن كده هاي توارونه إن يربي هالكاس مارت يرأت كان دونتا لكن دوا وحن كنت على جلايا واني بقوله نلاشان مارتي بلا رحمة أهو ونربى القباء تلفون بصاد عيا تيفي بدارن أو نيوز كدارن هذا شقة كلها إن قبر بالك في صدي نبى نندلي أو مارت مهم أديك مركا قوة هنا شقة بعضهم كلها marka horta anigu waxaan halkaas free waxaan u doonanayaa nolol free halka u raadsaday ma fahanteen marka kulli caleentan la gashanay anigu duurkaasna waan joogaya insha Allah in yar guri yar oo ma sha Allah iyo ma aragtay gacantaada ku dhisatay sariir yar gacantaada ku samaystay ma aragtay alaabta xitaa gacantaydina ku samaysto dharkana de caleenta un bay noqonaysaa insha Allah sababta waxaan ka cararayaa marka noloshan pressure-ka iyo telefoonka iyo biilasha iyo korontada iyo gawaarida iyo saxmadda wata ka cararaysa adduunkan istaba taal waa gartay deeqo waxaan kaloo ogahay ninkan iyo adigu isma aftaqaanaan Soomaali warkiisa daa xaqiisa Swedish ma yaqaano Ingiriisku adigu taqaanaa isagu ma yaqaano afkiisina ma taqaanid jacaylkuna waa in la yahay baa leeyahay maxaa ku wada sheekaysataan الله باي عبد حفيظ والله بالله أطلع وحن كويري هرتا وانين ما شاء الله لكن أف وحلي رهضه وأن اسكف عنه ما جرتو واحد صماد واحد هذا أفوا كان محل وقعنا مية واحد يجرين أفوا كان محل وقعنا مركب والله واحد اسكف عنه ما جرتو لكن حد نشان فراد اسم فهم واي صماد وترى هذا هالكاسن كسوق ليه ما فهمت وأدو اسك إيمان دونتا لكن كل وقت بقاعدنسا تاساب ugu daran hatta laakiin gacmaha ku sheekaysataan faraha isku taagtaan marka sheekaysanaysan waxaan jecelahay daawadayaasha inuu sheegay nin dhagool ma ahan haddana faraha ka sheekaysanaysan ninka aniga aan jecelahay Cabdi Xafiid oo farahan ka sheekaysana sababta waxa keenaysa luqad aan isku faahno isku afkarana ma jirtaba marka gacmahan ka sheekaysana jacaylkuna waxa weeyaan indha male dhiga male af male dhaqana male marka dadkana intaas maartay aan u sheegaya jacaylku inuu yahay jacaylka waxa la yiraahdaa waa dawlad madax banaan waxa leedahay waa dhaqaatiirta bilaa xuduud ah wallahi in Cabdi Xafiid ma maqlaysaa ha ma waxa weey jacaylkii baa hawdka ka galay waa gartay deeqoy طبعا دوخا قار عيارتي جعيلكو وين لا يهي باتري لكن اهل يا قرابه يا ددكو جعل باكو وحيران markay yiraahdaan lagu yiraahdo gabadhii xafsa ahayd deeqa ahayd cusub ahayd oo hawdkii doolo ku dhalatay iyo Soomaali galbeed daraawiish labisan oo dareys qabto oo gaardinaysan ay ka agdhaweyd baanin cawaana raacday marka lagu yiraahdo dabcan fikir bay ka qaadanayaan maxaa kala kulmi kartaa waa isla eeyl iyo qaraabo horta Cabdi Xafiid waxa jirta in waaruntayo de gabar maartay halka ka timid oo waliba dhulka hawdka oo ya daraawiishtii saxda ahayd waliba
in maaragtay dhinaca kale ay aado waa cajiib laakiin muhiimaddu waxay tahay horta dee Soomaalidu waxay ka yimaadeen dad reer baadiyaha ka yimaadeen marka wax weyn ma aha irjici ila al-asli qolo kasta meeshay ka timid bay dib ugu noqonaysaa marka anu meeshan ka imid baan dib ugu noqday maahane awowgii iyo maaragtay reerkeena waa reer baadiye ahaayeen iyo Soomaalida oo dhan marka haddaan cawaan raacay iyaga laftikooda laba go' bay xidhnaayeen labada calal baan ana xidhnaanaya marka dhib male waa gartay dabcan calaaladii Soomaalidu xiran jirtay calaalintu kala duwan deeqay waxaan rabaa inaan gabagabadii ku sii durugno jacaylkaasuna meeshuu ka dhaco kale waan isla ogaan doonaa sida lagula soo xiriirayo garan maayo meel aan telefoon lahayn oo hawd ah ama jungle afka qalaad ay ku yiraahdaan oo aan cid ismaqal cidna isaragoo geedaha iyo xayawaanka laga soo dhex tooso haddaad naga aadid garan maayo si lagula soo xiriiri doono laakiin wixii nool kale waa la seli doonaa waxaa jirtay arrin kale oo waa hore aad ka hadashay oo buuq fara badan dhalisay daawadayaasheena iyo dad fara badan ayaa ku jecel adiga codsi ay ku soo direen baa jirta oo aan rabay in hawada ku soo mariyo oo ay leeyihiin deeq inay arrintaa ka noqotaan jecelnahay maadaama aan aad u jecelnahay waa adigii beri dhexdaas geed dushi fuulo yiri haddii tii ilaahay timaado geed dushi hala isaaro dhulka aan la igu xabaalin deeqoy maalmaad joogtay ka soo wareegtay arrintaas adduunku waa 2 cisho codsigaas dadweynaha Soomaaliyeed kaaga yimid ku jecel ku taageersan inaan salaam ku dhignood ka soo degatid geedka oo meesha ummadda islaamka lagu xabaalo dhulka iyo gaalaba lagu xabaalo ma ka aqbalaysaa dadka Soomaaliyeed see soo aragtay arrinta alla walaalkay thank you very much aad iyo aad baad horta su'aasha sugu mahadsan tahay anigu horta Soomaaliyeed baanahay adduunkan waxaan u jecelahay ummadda Soomaaliyeed waxaan u jecelahay oo kale maaragtay codsigooda ama waxyaalaha ay soo jeediyaan ma diidi karo wax dhici karta ma ahan the grateful kuna wax iska ahaadee yaa waska marka dhulkan u soo degay Soomaalidana wax la qabaa marka dadkaygana waa jeclahay adiguna aad bad u mahadsan tahay way adaa mudan 100% arrintaas buuq bay dhalisay qofku markuu khaldamo uu khalad ka dhaco ama hadal uu si u yiraahdo hadhowto markuu ogaado bulshadu ay baraarujiso asagii uu fakaro waa inuu fikirkan maskaxdaada in badan ka guuxay laftigaaga inaad ka soo noqoto tiraahdo dadkayga waxay ii soo jeedaan anigu ma diidayo waa markay muuqaalkan daawadaan dad fara badan inay oranayaan anagoo geel jira inay naga tagtay yeelimayna deeqo gabeynaaye ninka cawaanka ka soo noqoto ayaduna meesheeda weeye jacayl baa ku haya waa xumadaysan tahay gabagabadii iyo gunaanadkii deeqooy maxaad marka laga soo tago ninka cawaanka iyo arooskiina iyo isagoo dhago lahayn aad faraha ka wada hadlaysaan maxaad jeceshahay oo kale inaad samaysid fankii Soomaalida ama halkaas aad kaga tagaysaa oo waa ka baxday ninka cawaanka iyo hawdkaad u go'aysaa mise marmar baad dunida ku soo noqonaysaa iyo xaqiiqada nolosha iyo qurbahan aan ku noolnahay oo qac ka siin doonta hees iyo laba والله horta Cabdi Xafiid oo anigu horta waxaan rabaa inaan u gooyo ama ka gambisto maaragtay alaabta saxmadan waxaan ka cararayaba waa saxmad waxaan rabaa tartiibtayda maaragtay meel yar oo maaragtay sariiran anigu gacantayda ku tashay bahal yar oo dhulka laga soo qoday tartiibta xaaji yaran jeclahay horta bilaa buuq dadka waxaan hay saxmada necab marka noloshaan horta inaan u gooyo oo aan ka gambisto waa go'aankayga kow mid ugu horeysa tan labaadna dee walaal fanka ku dhasho fanka waan jeclahay geedaha maartay inta wax ka soo qorto durbaan ayaan garaaci doonaa bahal yar oo trumba ana maartay dhuumaha geedaha ka samaysan doona insha Allah taxaajigana u heesi doonaa laakiin ugu dambeyntii hadii dadka Soomaaliyeed ku daawanaya ninkaas ay Soomaaliya weydiistaan geel uusan lahayn maxaad uga garnaqilay maya adduunka waxaan u necbahay gabdhaha yaradka laga bixiyo yarad la bixiyo iyo taageerad gabadha marka laga bixiyo wiilkana laga bixiyo waskooda mid kasta reer baa dhalay mid kasta maartay isku siba loo dhalay isku siba loo jeceliya marka aan taas horta yaradka waa soo jeeday waxaan rabaa fikirka erayga ugu dambeeya inaan adiga ku siiyo
maxaad jeceshahay inaad bulshada Soomaaliyeed la wadaagtid ugu dambeyn horta cabdixafiid walaal aad baad u mahadsan tahay ummadayda Soomaaliyeedna wax badan baan la wadaagi lahaa la wadaagaya insha Allah waxaan runtii aan dhihi lahaa horta ما شاء الله اسكو دومناشو waa muhiim Soomaalinimadu waa muhiim ilaahay horta waxaan ka rajeynayaa inuu dalka nabad ilaahay nooga dhigo dib aan u noqono coronavirus iyo dhibaatada iyo balaayada haysata ilaahay inuu naga dulqaado tan kale oo aan ku sii xijin lahaa waxay tahay waxaan maaragtay dadkan maaragtay media sida khaldan u isticmaalo waxa oran lahaa walaalayaal dadka maaragtay magacooda si khaldan ha ugu maaragtay ha u dhibaateynina ayaan lagu diganin qofka hadallada ayaan la bedelin wax kasta xogogaal iyo maaragtay waxaad soo baarteen ha noqdaan marka waxaan dhihi lahaa dulmiga hal iska daayo intaasaan dhihi lahaa waa hagaag deeqa aadan muuse aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waraysigan aad naga ogolaatay iyo waqtiga aad nasiisay iyo sida noo karaamaysay inta ay inka badan baan ku haynaa waxaan ku rajeynayaa guul iyo gobonimo walaalkii aad iyo aad baad mahadsantahay cabdixafiidow noolow adduuniya aakhiraba waxaad tahay qof Soomaalida ku weyn waxaad tahay qof anaga nagu weyn waxaad tahay qof qaali ah qof aanan sinaba uga maarmin bulshada Soomaaliyeed sinaba kaaga maaranto ilaahay waxaan ku rajeynayaa cimri dheer iyo caafimaad cadowgaagan Allah jabiyo waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaalidu waa uliya diir waa isku baahanahay aad baa u mahadsantahay waxaan kaloo jecelahay inaan u mahadceliyo dhammaan daawadayaasha sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa barnaamijkan duubay qaybtiisa magaalada London wariye Cabdifataax Cali Shirwac aan boqolkiiba boqol mahadcelinayo laf dhabar u ahaa sidoo kale Sweden waxaa barnaamijkan duubay saaxiibkay Cali Rock oo marnaba abaalkiisa aan gudi karinin in dhalinyaro khiyaar ah oo aad iyo aad hawl badan ah ilaahay ku karaamayaan leenahay sidoo kale waxaan jeclahay inaan mahadceliyo abwaankeena ama fanaankeenna Cali Dhaanto asagoo laftigiisa barnaamijkan qayb ka ahaa oo nin asxaab aan nahay marna walaalo aan nahay kulligiin inagoo isku duuban guul baan idin rajeynayaa waana mahadsantihiin